madaxweyne xasan sheekh waa inuu caddeeyaa inuu yahay gudoomiyaha USC-da cusub oo 2023 iyo inuu yahay madaxweyne qaran oo wadanka xasilooni deganaansho qori isku dhiibkii loo dhiibay kaga dabaalsiiyo kagana tago. Green Media. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Marka koowaad waxaan u mahadcelinayaa Bakri Media oo igu soo dhaweeyay magaalada Toronto, Canada, noo hirgeliyay ama noo fududeeyay war-saxaafadeedkan ku aadan waxaan taageero buuxda u hayaa Hiiraan State oo saakay calankiisii laga suray magaalada Beledweyne. Ka noqosho ma lahan, sharciyan waay, dastuurka ayaa u ogol. 60kii Hiiraan State ayay ahayd. Maanta Hiiraan State intaas oo soo dagaalameynay waxayna ka mid tahay gobolada aan la kala qaybinin oo 6dii gobol soo dareenka ah waay iyo 2dii gobol oo waqooyi. aad iyo aad ayaan u soo dhaweynayaa uguna faraxsanahay. madaxweyne xasan sheekh waxaan leeyahay wadanka dhibaato ka taagan, haday noqon lahayd Somaliland, haday noqon lahayd Khartoum State, haday noqon lahayd Puntland State, haday noqon lahayd Hiiraan State, haday noqon lahayd Gedo, haday noqon lahayd Baraawe. hal sano kadib wadanka wuxuu ku noqday qalalaasihii ka dhashay 90kii waqtigii Maxamed Siyaad Barre. kacdoomadii bilaabmay ayaa hadda socdo, waxaana mas'uul ka ah dowladda federaalka, waxaana eedaas dusha ka saaraya madaxweyne xasan sheekh iyo xukuumadda dowladda federaalka oo aan lahayn la taliyayaal fiican, isla markaasna meelihii deganaa oo dhan qasaayo. Hiiraan State oo ku faraxsanahay maanta 100% in calankii Hirshabeelle meesha laga tuuray, calankii Hiiraan State la saaray. waa dad Soomaali ah, xaquuq ay u leeyihiin, xaq ay u leeyihiin. marka cid kasta oo isku daydo inay ka hor imaado waxaan u sheegayaa siibo madaxweyne xasan sheekh meeshaan Talyaaniga laga saaray, caasimad waxaa ahayd Buuloburto, waxaa laga saaray Sayid Maxamed Cabdulla Xasan, waxaa laga saaray Maxamed Faarax Ciidiid Allah yarxamu raximin, waxaa laga saaray haddeertaan cadowga al-shabaab. waxaan leeyahay madaxweyne kursigaaga u tur, waalid baa lagu yahay, waa laga xishooday, ummadda ka xisho. apology Khartoum State, Puntland State, raaligelin buuxdo shacabka ha kaa maqlan. Hiiraan State way dhammaatay maraku daboolid iyo magaciisa. Cali Jeyte waa leader, isla markaasna istaahilo taalo in loo dhiso asiga oo nool. 2 cid allaale iyo ciddii oo xildhibaanada reer Hiiraan ka qayb qaadatay waxay naga mudan yihiin sharaf, wanaag iyo abaalmarin ayay nagu leeyihiin haddaan nahnay reer Hiiraan. aniga oo u hadlayo former presidential candidate Cabdi Cabdullaahi Xaashi Seed, gudoomiyaha xisbiga dhaqaaqa Soomaaliyeed, waa u dhashay. aniga waxaan ku dhashay Kismaayo, wax ku bartay Xamar. waxa waaye Hiiraan dhan waxay igu horeysay 2012 laakiin shacab Soomaaliyeed Khartoum ebedkay ma tagin, Puntland ebedkay ma tagin, Gedo ebedkay ma tagin, Baraawe waa tagay. laakiin intaas waxa ugu doodaya waxa waaye xaquuqdoodii iyo xaqo ay dowladda ku lahaayeen ayaa meesha ka baxday. waxoodu loo raadiyay iska dhaafee wax allaali wixii xaq ku lahaayeen lagu tumanaya. madaxweyne xasan sheekh waa inuu caddeeyaa inuu yahay gudoomiyaha USC-da cusub oo 2023 iyo inuu yahay madaxweyne qaran oo wadanka xasilooni deganaansho qori isku dhiibkii loo dhiibay kaga dabaalsiiyo kagana tago. sidaas awgeed xisbiga dhaqaaqa Soomaaliyeed wuxuu ku baaqayaa madaxweyne xasan sheekh inuu arrimaha ka socdo Somaliland wax aan isku darsanayna ma lahan ilaa 6 gobol laga helo qof iyo cod, nabadgelyo, ammaan.
madaxweynaha oo Somaliland waxaa ugu digayaa war wadan nabadgelyo leh xasilooni leh ayaa lagu dhiibay haddana wadan colaad iyo dhibaato ka socoto ka har talada Ismaaciil Cumar Geele ka har talada Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo wadanka maanta qaska ka taagan aabi iyo hooyo asigu una fiirso shacabka Soomaaliyeed waxa uu sheegayaa hadduu madaxweyne Xasan Sheekh sidan ku socdo waxay u biishoon doontaa madaxweynihii ugu horeeyay ee xukunka hal sano iyo bar asoo heenin laga tuuro war kursigaaga oo qabiilka iyo cadiifada iyo ehelka iyo dadka aad rabto iyo axsaabtaada iyo dadka kooban oo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo shalay aad ku eedeynayso maanta kugu sarandigaaga adiga ku sifooway fadlan had kursigaaga u tar cid aan Soomaaliya ka xigta ma jirto cid aan Soomaaliya ka leedahay ma jirto shacabka Banaadir State waxa ugu baaqaya Hiiraan State maanta calanka waa laga taagay madaale waa nin fiican gudoomiyaha gobolka Banaadir saas awgeed waxaan codsanayaa shacabka reer Banaadir in ay si wada jir ugu istaagaan Banaadir State waa aniga oo Cabdullaahi Xaashiseed former presidential candidate advocacy oo ahaa intaas Banaadir State iyo Hiiraan State maanta guusha koowaad waa gaarnay sidaas awgeed wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dadka ku dulman baraawe waxaan leeyahay dowladda iyo dadka kale oo maanta ku tumanaya dadkaas masaakiinta waxaan leeyahay unaxa aakhiradiina ayaa ka badan adduunkiina fadlan u istaaga danta diinta dalka iyo dadka والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.